محمد علي وعبدي مرشح مدحونه ku-xigeenka xisbiga mucaaradka wadani ayaa ka hadlay kulan habeenkii xalay dhex maray mas'uuliyiinta asxaabta mucaaradka iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kulankaas oo lagaga wada hadlayay arrimo ku saabsan doorashooyinka soo socda ee la filayo inay ka qabsoomaan Soomaaliland Maxamed Cali oo Cabdi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxa xalay madaxtooyada ka qabsoomay kulan dhex maray oo ay u dhanaayeen xisbiyada qaranka Soomaaliland kulanka waxa soo qabanqaabiyay oo muddo ka shaqeynayay mas'uuliyiin siyaasiyiin aqoon-yahan reer Soomaaliland oo horseed u ahaayeen saddexdii madaxweyne ku-xigeen ee Soomaaliland oo ka mid yahay ay ahaayeen Xasan Ciise Cabdiraxmaan Cali iyo Axmed Yuusuf akademiyada ururada bulshada dhammaantood dadka ka soo shaqeeyay in kulankaas xalay madaxtooyada ka qabsoomo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ilaahayna ajaysiiyo waxa xalay la isla gartay oo kulanka ka soo baxay in wada hadalladii hore u burburay ee ka dhex maray xisbiyada Soomaaliland muddo 3 bilood ka hor in dib ay u qabsoomaan kadib markii culays ka yimiday aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka reer Soomaaliland iyo international community-ga cidii danaynaysay Soomaaliland horumarkeeda guud iyo geedi socodkeeda dimuqraadiyadda culays ka yimiday darteed baa keenay in gogosha xalay la fidiyo madaxweynuhu fidiyo xisbiyaduna aqbalaan waxaana ka soo baxay in wada hadalladii burburay dib loo bilaabo oo la isku soo noqdo oo laga wada hadlo waxa la isla gartay oo la isla ogolaaday in mowqifkii xisbiga ee ahaa doorashada golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka inayna dhaafin oo ina dib uga dhicin sanadka soo socda 2019 in doorashadaasi dhacdo mowqifkii xisbigu hore u soo jeediyay u cidna ay ku waafaqday in xaleen la isla garto madaxweynuhuna ogolaaday inaan doorashadu dib uga dhicin 2019 waayo waxaan ognahay doorashadaasi oo imiga dib u dhacday oo dhici lahayd March dhibaatada ay keeni karto haddii ay sanadka dhaafto sumcadda Soomaaliland horumarkeega iyo waxa la xeego dhan isku xinaanshaha ummadda iyo wadajirkaba dib ay u keeni doontaa marka waxaan qabnaa in arrintaasi ay fuli doonto si arrinta doorashadu ay u dhacdo sanadkan soo socda dabayaaqadiisa waxa la isla gartay in wada hadalladii burburay ee xisbiyada u dhaxeeyay dib loo bilaabo arbacada soo socotana ay bilaabmaan oo bishu tahay 19 laga wada hadlo sidii doorashadaasi 19ka dabayaaqadiisa u qabsoomi lahayd oo la iskula meel dhigo lana dhamaystiro ajandihii hore ee shirku ka burburay iyo wixii kale ee ku xeersan in doorashadu ay qabsoonto waxaan rajaynaynaa in kulanadaasi oo la isla qaban doono laguna heshiin doono waqti timetable waxa la yiraahdo waqti ayman oo la wada qaban doono oo la fulin doono waxyaalaha ka horeeya in la dhamaystiro si doorashadu u qabsoonto waxaan rajaynaynaa ilaahaydnkii in doorashadaasi aanay kulanadaasi aanay burburi doonin oo xilkasnimo iman doonto oo laga wada shaqayn doono oo ay fuli doonaan doorashaduna si xalaal ah oo nabadgelyo ah ugu qabsoomi doonto dabayaaqada sanadkan maalinta Arbacada ayaa lagu ballamay in si rasmi ah loo gudo galo wada hadallada u dhaxeeya mas'uuliyiinta asxaabta mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland Cabdiraxiin Axmed Mahdi Bulsha TV